walaalayaal oo anoo yaaban oo aan dhahay maxaa qaldan war odaygan dadka wuu ku karnaan jire wuuna heesa jire hadba waddanuu isku taagi jire maxay tahay anaga sababta uu nooga hari la'yahay uu mar walbaba uu noo daba taagan yahay yaa anoo dhahayo yaaban ayaa waxaan soo ogaaday ninkan jaceelka adduunyada ugu horeeyey oo si diib inar ah uu ruux bini aadana u jeclaystay jecelo badanaa ka horeeyay laakiin si diib inar ah uu u jeclaystay waxay ahayd gabadheeni iimaan aada samaca walaalay gacansu noogu gashlay in waddankeena dagaalka dhacay ma ogeen miya inaan soo qaxeena ma ogeen miya in Donald Trump madaxweyne noqonayo ma ogeen miya inuu meelahan ugu cirdaysana adi ma ogeen miya maxaan ku ogaanay cilmi qayb maata wuxuu u waashay gabadheeni ayuu u waashay annagana dee gabdhaheena waxa waaye gabadhii wax haysato markaas يعني عرور إنه هيسوتو ده كان عروت أكو كرسيتي معانا يعني نم بنينكو كقرب بدك كأغلب بدين هاي أي رأسنا سوسو معهن إيمان مركي أردت إن كان إنه سأنفع إنه يحتروا على المعنى وحمل كوشة جاي ترى got lost سيبي يديه كرتا أسيقو لدالا دعايو جعلكي إيمان أيها هدانا وحو أركي قبري رصاص كسينا أسوان oo Soomaaliyeed ilhaan la yiraahdo ilhaantiyo maaga leefad inuu ku xirto jaceelkii iimaan oo meeshas uu ku dhaqdhaqo iimaan uu ka masirsiyo hadda maxaa la dhahaa ilhaan ma ahan hadda gabar diif ku raacaysa ma ogta iyo magac iyo maalba mawlaasiye dir awow maxaa kaa khaldo adigana ma ku taaro ilhaanay iska ogolaatino waadar ilowgeena loo iska noqon lahaa ilmihiisana waxa u noqon lahayn abdi iyo abriira u noqon lahayn wuuna ixtiraami lahaaye saacada haddii ogolaale xitaa ma arkino raashi gabadhu ka qaba magicishaha xitaa because ma jeclo idinku waashay naagtis inuu qabiy in kale xitaa shakiya ugu jirto gabdhii qurqurxad badan Soomaaliya laba dhanaa nacdee ninkan inuu burbursado dantaa ku kalifayso walaalayaal maxaa ula yaabantiin aw daan jam desan walaa bila marka qaar waxaan miskiinka qalbadiya go'day odaygu waa isku